السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تقييمي قايها لميل كستا كجوجتين دنيا الدافئة هذا وان إذن سلامينا أنيقا إيا دمان dad badan ila jooga halkaan laakiin amaamsan salaanka bacdi halkaan maanta waxaynu sida bahal chicken oo ajaa'iba wax walba noocyo badan ayaa loo sameeyaa bariiska noocyo badan loo kariyaa baastada noocyo badan loo kariyaa chickenka laftirkiisa noocyo badan loo kariyaa hadda koor chicken leegan soo sameeyay caaw asagoo nooc kale aan u karinayno oo maasha Allah ku soo bixi doona ayaan haddana inoo wadaa. Okay, halkan waxa igu jira xawaashiyada hadda inii sheega garan masala, halkan waxa igu jira baabarika, halkan waxa igu jirto cusbo, kabsar caleen gabar kasta way garanaysaa iyo wiil kasta wixii daawanaya dhamaan. Halkan waxa waaye ginger garlic paste waa la isku shiiday dad baa la iskaga dhiga. Halkan waxa igu jira koobkan igu jira basal la shiilay oo la qalajiyay. kan waxa waaye yaanyadaas sliced ka ah xeeradan ay igu jirtaa marka yaanyadaas u taasa. halkan waxa igu jira hal koob oo plain yogurt ah. This is plain yogurt maasha Allah. halkan waxaan u baahanahay inaan waxaan isku la dhex dardaro khasab saliid. Okay, sida uu ku soo baxo maasha Allah tabarakallah waan jeclaaday, dad badan way jeclaadeen. I hope inaad idinkana jeclaataan kuna enjoy gareysaan. marka insha Allah wax walba waxaan idin soo bandhigi doonaa sida hore u ballan qaaday inaan u sameeyo dhowr nooc intii aan awoodo aan soo post gareeyo. marka stay tuned insha Allah. haddaan la joogi jirtay fadlan waa ka heli doontaan. I'm sure end of the video definitely waad ka heli doontaan sida anigaba uga helay. marka fadlan markaa ka heshaan videogeena if you like it, thumbs up. haddaan la joogi jirtay maaragtay sii share gare thumbs up si. haddaan ugu cusub tahay subscribe samee. jazakumullahu khair. waa hadda waxaan guda galaynaa cooking-kii iyo maaragtay jikadeeni. Okay, isku dardarkeeni hadda bilaabeena marka isku dardareena. shaqanta raali ka ahaada guriga ciyaala joogaan maasha Allah tabarakallah. ilmo mar hadday meesha joogaan wax kastaas ka maqlaysiin marka iska dulqaata insha Allah. haddaan shaqanta carruurta maqashin ilaahay inta carruur haysatana u barakay, inta haysan Allah siiyo. isbadii waa taas gareen masala una baabarika intaas aan isku dareynaa saliidiina hore aan ugu shubay. Okay, akhyaarteena sharafta leh waa kana alaabtan waxaan isku soo daray xawaashiyada aan tusaayay saliidii iyo waxaan isku daray waxa kanoo la yiraahdo plain yogurt saana isugu mix gareyna marka alaabta aan saa isku dhex gashaa. Okay, alaabteeni oo aan isku dardaray ayaan chickenki korka kaga shubayaa hadda sida u jeedinba. waa yogurt, garan masala, baabarika, saliid, cusbo yariisa intaas isku soo walaaqay ka bacdina chickenkeedii oo bilaa barafa oo aan khaliya qadar 7-8 minutes ah aan ku radiyay, aan ku dhaqay, aan ku nadiifiyay jeermiska kaga dilay maasha Allah. chickenkana dhadhan siiya ay halka igu jira. bismillaahir rahmaanir rahiim. aan isku daray marka waxa kanoo la yiraahdo waxa kasto bilaabaysa bisinka lagu bilaabaa. marka hadda gacantaan geliyay alaabtii ayaan marinayaa marka waa kana. ready? Okay, halkan waxaa noogu jirta sinjibiil iyo toon hal qaadaan ku daraa iyo wax yariis ah maasha Allah. dabkan waa inuu ku gaaban yahay sidayna toonta kaaga gubanin. fiishino shilmeen iyo saliidi yaanyadan oo maaragtay miro camal ah oo qasaca ku jirta isticmaalaya. You can use any yaanya that you like at that moment. alaabtaan la khaleeyay u baahan markay khaleeysanto kadib haddana ku dareena step kale. Okay, halkan waxaan ku diyaarsanaynaa saliid yaraan dabka saarnay ka bacdina waxaan ku darnay yaanyadeena jarjarnay oo baaquliga diyaarka inoogu ahayd. ginger iyo waxaan ku darnay marka sinjibiil iyo waxaan ku darnay toon. saddexdaa shay ma isla maaragtay khaleynayna. saddexdaa markay saa u khaleysmaan ka bacdi ayaan ku dareynaa. sida ayay ku soo baxday. hadda chickenka ayaan ku dareynaa marka yaanyadii alaabta isku shiil marka ka bacdi aan chickenka ku dareynaa marka. Okay, hadda waxa yaro coconut milk aan ku darayaa just a little bit. coconut milk picture-kiisana waa inuu tusaaya caanahaas aan isticmaalayay oo kaasa maasha Allah loogu talagalay suugada ku sawiran maasha Allah. suugo kasta lagu darsan karaa marka anaga caawa halkaan aan ku darnay si fiican isku dhex gelinay marka
اوكي وادبولينا marka 20 minute ka bacdi baan soo noqonaynaa kusoo baxa chickenkeena ما شاء الله تبارك الله chicken كان وحوا chicken ما شاء الله ما عرفت حوغا سوق qoyan u leeyahay macaankiisa iyo dhadhankiisa qofka dhadhamiye bes ayaa dareemi kara oo ma aragta ka sheekeen kara waxaan marka idinku boorin lahaa inaa ma aragta tijaabisaan oo ma aragta ka faa'iideystaan insha Allah aad ayuu wanaagsan yahay I hope you guys enjoy with it raalli ka ahaada ciyaalka yarka islaan ciyaal haysta ayaa videoyaasha sameeysa marka hadaa mar walba sharqan maqashaan iyo ciidadaar insha Allah ciyaal yar haysta inaa wax sameeyaan waan rabaa ما شاء الله تبارك الله marka dhamaadkii chickenkeena weey waxa rabtaa ku cuni kartaa chickenka sabaayada ku cuni kartaa basta ku cuni kartaa bariisa ku cuni kartaa bariiskan inuu cadaado way marka ku cunays waxba ma diidaayo marka fadlan hadaan la joogi jirtay ma artay thumbs up si share garay sida walaalaha kale uga faa'iideystaan hadaan ugu cusub tahay subscribe sidaysa ku dhaafin videoyaasha mar walba aan soo post gareynayno oo ma sha Allah aan kala dhicin وكاسا dhamaadkii chickenkeena